السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم. reer أو reerihii halkan joogi jiray أو akhyaartii أو macaamiishii أو kastamarkaygii. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل ما خدك يوحى تلفوننا يوحى wax kasta ان اصحابي ومركي لبادن soo laabto arintan waa arin aad muhiim ah waxaan idin wado waxa jira horta intaanan mawduuca idin bilaabin waxa jira dadka qaar baa iska jira ayagoon waxba dhageysan hadalkooga rayigooga la soo orday horta wax dhageyso marka rayigaaga ka dhiibo taasaa muhiim ah laakiin adigiin waxba dhageysan ba hadalkaagii aad maxaa la raahdaa aad ka dhiibatid oo tiraadid sidan ma waa sidan kale daad walaal xaakimatid ma garatay marka asxaabay hadan inta kaga gudbo dadkan waalwaalan iyo dadkan warxumata shilka ah waxaan rabay inaan idin la wadaago arin yar oo muhiim ah arinta muhiimka ah oo ah inaan kulleeyda sida caadadeena ahayd Soomaalidu waxay ku caan baxday waxa weeyaan dad isjecel oo maxaa la raahdaa oo maxaa la raahdaa waa dad isjecel oo iscaawiyo oo meel kasto ay joogaanba farxadii murugaba isla qaybsada san ogaanigu weeyaan waana halkii bay taagan tahay waxa jira walaalo waxaan u soo galay maanta Facebook live kan inaan idin la wadaago oo idin sheego inaan yaro xanuunsanaysa oo Yasmin la raahdo oo madaxu bararay una baahan in la caawiyo oo maxaa la raahdaa wax loo qabto كل الدقيقة واحد يسكوجي هي آخرها بورلس كمعلنا واحد كستوات بقتنا وواحد يجمل كويالا هذا القصة إيه واحد كستوات قبتي دود بناء أن تكون عاوزينه وواحد يجبرته وعاون دونه إن كل إن محل ضد كقاربة أرن كان عاوتان كفكرة خلدن كآمن سن أو مودة ضد كقارنة كوش قيستانا باي أيجو توك سنيان لكن سي وأيجو حيسمينا يانون وضد كي بيعاون يان لكن دad kan la maxaa la radaa wad ku shaqaysataan shaqo cusub soo baxday taas micnaheedu waxa weyn qofkan isaga waa bakayl moogtay marka maadaama uu bakayl yahay inuu waxba bixinayn wuxuu rabaa inuu dadkii oo arinkii bedelo oo maxaa la radaa siday saxday tahay inuu u bedelo sida kale qaladka inuu bedelo oo maxaa la radaa sheekada uu sheeko kale ka dhigo iyo ina waxan lagu qaraabanayo taasina ma jirto walaalo inanta yar waxay joogtaa magaalada Muqdisho waa ilmo yar oo baby waa nunu yar waa ilmo yar oo reerkooga hooyadoodii aabahood baa ku tabceen maxaa la raahdaa dhibaato badan ay kala soo kulmeen ilaa markay dhalatay ilaa hadda xanuunkana la soo dhalatay markaan runtii anigu arkay anigu wallahi waan ka naxay waan ka ilmeeyay filsan ahaan damiirkayga ayaa sidaa noqday marka maxaa la raahdaa mursal walaal Muqdisho joogtaa waana intusi doonaa ciwaanadaad kala xiriireysaan iyo maxaa la raahdaa nambaradooda waan idin soo sheegi doonaa tayarna waan idin tusi doonaa caynkay tahay waan idin la wadaagi doonaa walaalayaal fadlan waxaan idin ka codsanayaa waliba aad iyo aad idin ka codsanayaa inaad inan taayar waxaad ku caawin kartaan cidii caawinaysa ay caawiso cidda aan rabin inay caawiyaanna maxaa la raahdaa hadal iyo xumaanta wadana waxaan leeyahay saaxiib idinku bay idin dabarsanaysaa marka walaalayaal aan idin tuso gabadha yar markaan idin tuso ayaan maxaa la raahdaa faahfaahin dheeraad laga bixin doonaa okay wata baby yar xaggan igu sugaysaa videogeegan aan tusaya. So are you we don't have anybody that speaks Spanish, but can anybody that know how to speak English come with him? So, because we need to ask a question, we need to ask him some questions. Okay, and your English is okay. You can understand if I ask you like certain question. Yeah, we do. So by law we're required to ask certain questions, like I'm gonna tell you certain things because you know the application they ask you legal questions like, oh, do you participate in terrorists, are you like this, like that, do you belong to organization?
So yeah, you have to. 1 second, just yeah. And wax yar suga walaalayaal please qofaa telefoon ku hadlaya. Yeah, but you are able to understand the question, right? So if I ask you, it's not gonna be a problem. Okay. Oh, nice. Okay, so the application fee, it's gonna be $725 that we have to send the application, and it's $100 for us to fill it out for you and to send it out. So altogether is $825. $100 for the agency, $725 for the application fee for the government. Okay, and we only take $100 because we sit down and fill it for you. Yeah, you're gonna. Okay, I'll tell you. What's your name? What's your name? Wax yar suga please. Okay. Can you before I come and make an appointment for you so you can bring him? Can you come and take the checklist? We have a checklist that all the stuff that you need to bring, and I can explain it to you if you come on Monday. I will explain to you what do you need to bring. Like you need to bring the green card, you need to bring the food stamp, but we have a list so you won't miss anything. You can come and pick up the list on Monday, and then we can make an appointment for like a Tuesday or something. Is that work for you? Yeah, you can come at 11 o'clock on Monday. No, we are on 10 Malcolm X. xanuunkan waa mid ay la nooleed ilaa markii ay dhalatay oo umusha lagula jiray. waalidkeed in badan ayay gabadhooda la raadiyeen xarumo caafimaad oo gudaha caasimadda iyo gobollada dalka si xaaladdeeda ay u hagaagto. laakiin waxaa loo sheegayay mar walba jawaabo isku mid ah oo ahaa in aan xaaladdeeda waxba looga qaban karin gudaha dalka. X by itself, X so is Malcolm and then X by itself. yaasmiin waa gabadhan yar xanuunkeeda sida uu ku bilowday waxaa sheegaysaa Khadiija Faarax oo ayeeyo u ah gabadhan yar. waxa ku dhacay masaajid xanuunka maskaxda gala wax takhtar ma jiro takhtar waa la geeyay hargeysa la geeyay dikteera la geeyay waxba kama qaban karo yiraahdeen gabadha wax looga qaban karaa. Do you know that the station where the buses are? iyadoo 40 cawo jirta. You know there's like a social security office office. xanuunka qabanayay maxaa laga dareemay? waa qalash. So if you that list is across the street. kulligood waa qalash. Yeah, but it's across. andaa qabatay waa qalashay. You go across is like. way shugantay waa matagtay qandhadina waa deen weyday. There's a high school, there's a big mosque in Roxbury, big mosque. soo salgay 15 casho lagu jiray. So are you taking the bus on oo mar walba ka hor muuqata mana awoodo inuu iska bixiyo qarashka caafimaad ee dalka dibaddiisa loogu qaadayo gabadha. isaga iyo qoyskiisaba waxay bulshada Soomaaliyeed ka dalbadeen in ay caawimaad la garab istaagaan. maalintii ay dhalatay 40kii cudurkan ku dhacay ilaa waddan waxa walbana cudurkan ilaaha keena caafimaadkeena. Okay, hold on, let me take down your phone number too. intii oo ilaahay wax siiyadaha inay cunugtan iga caawiyaan hadda rajadooda fiican tahay. hindiyaan ilmaha saan loo qaadaa qaliina lagu soo sameeyaa marka geerina waan naqaanaa caafimaadna waan naqaanaa waana dareemi kartiin muddo 3 sano cunug qof iska xanuunsan oo meel iska taalo qofkii dhalay 3 sano iyo 2 bilood cunug meel iska taalo oo iska xanuunsan habeen iyo maalin xanuunkeeda qof kor taagan oo meel walba geynaya. lambarka aniga lambar labaad waxaa waaye 5 53 73 96.
walaal ku caawi wax kastood awoodo sadaqadu yaraan ma laha what هاي أصحابي excuse me please what أصحابي صدقته يرانا ملها وينانا ملها وحكستو aad dhigatana waa wax adiga meel ku yaala waxaad ku caawin kartaan inan taayar waxaan idinka codsanayaa dhammaan asxaabteeda ku jirta Facebooka amba ay daawanaysa ee ku xiran Facebookayga waxaan ka codsanayaa inay maxaa la yiraahdaa inan taayar miskiinta ay caawiyaan cidii wax ku caawin karaysaaba ay ku caawiyaan haday noqoto lacag haday noqoto xoog xitaa waxa ku caawin kartaa oo kaliya adigoo fidiya amba dad gaarsiya asxaabtaada dadka Facebook kugu jira dadka aad garanayso cid kasta oo aad garanayso inaad gaarsiiso talaftigeey waa wax adiga meel ku yaala oo ku caawin karto walibana ilmaha yar aad baan idinku mahad celinayaa waqtigiina waxaan rajeynayaa inaad aragteen numberkeygana waan idinku soo qori doonaa Facebookayga numberkooga aad kala xiriiri kartaan waxaan rajeynayaa inaad aragteen kulley waxaan xanuunkan iyo ilaahay umada uu isku eegayaa maxaa la yiraahdaa waa wax adigana bari ku iman kara walaalka bari u iman kara qof ehelkiina bari u iman kara marka wax kastood meel dhigataa waa wax meel ku yaala wax kastood u qabato qof binaadan oo ku caawisidna waa wax adiga ku yaala meel oo lagu caawin doono bari toole wadka lamaad balamin caafimaadkana lamaad balamin anytime ayaad dhiman kartaa anytime ayaa laga qaadi karaa maxaa la yiraahdaa caafimaadkaaga marka umada ilaahay inta isku eegaya inan taayir looma waayin in caafimaad ku dhalato looma waayin in caafimaad ku korto ilaahay wuxuu ku eegayaa bal umada kale inay u naxariistaan ay waxaystay wax ku dhaama marka asxaabay waxaan idinka rajeynayaa adduunyadu waa farcisho ifka wax la isku yahay aakhira aboor la iskama celinayo qofna qof waxba uma qabanayo hadii la dhinto laakiin maanta inta aad nooshahay eed soo taagantahay xay tahay ayaad maxaa la yiraahdaa aad wax qaban kartaa aniguna run ahaantii waxaan jecelaystay inaan taayir idin la wadaago oo cidii awoodayna wax ku caawisana ay ku caawin karaan cidii kalena de ay maxaa la yiraahdaa aanay ku caawin karina de inay hadal iyo ducaba ay ku caawiyaan ducadu waa wax qaaliya marka aad baan idin salaamayaa dhamaantiinba waxaan idin rajeynayaa maalin wanaagsan waxaan idin rajeynayaa caafimaad fara badan iyo cimri dherer inuu ilaahay nagu gaarsiiyo ilaahay nagu gaarsiiyo maanta maalinteeda kale waa ma ogaan karnaa inaan noolaanayno iyo inaan dhimanayno insha Allah inaan tayrno waxaan rajeynayaa inuu ilaahay caafimaad sareecana siiyo inuu ilaahay umad caawiyo oo uu soo diro xanuunkana ilaahay ka caafiyo insha Allah khayr baan idin rajeynayaa waan idin salaamayaa dhamaantiinba numberkana waan idin soo qori doonaa sidoo kale TV-ga Universal ayaad page-kooga ayaad ka arki kartaan inanta yar iyo numberkooga anna soo dhigi doonaa xaggan inkastoo hore u soo share garay haddana numberkan dib idinku soo qorin doona inanta yar please caawiya ogaada waa inantii yareedoo kale intii wax dhashay way dareemi kartaa intii maxaa la yiraahdaa waxba dhalina de walaalahoodii iyo family-googa sida uga damqan lahaayeen waa inay uga damqadaan insha Allah walaalayaal asxaabay aniguna waan caawinayaa anigu kulli haddaan hadalkayga ku caawiyo waxyaabo kale badan oo ku caawina qofka wax yar ku qabta wax weyn ku qabta asxaabay sida ula socda ciidaadiga caawi anigu walaal intaasiba waa caawitaan ma garateen marka ilaahay waxaan uga rajeynaynaa inuu inanta yar caafimaad sareecana siiyo guliga gobanimaan isku ognahay iyo inaan wax isku qabano intaan noolahay waan salaamay waan jecelahay maca salaama